waxaa la joogaa xilligii salaada duhur iyadoo maxaabiista muslimiinta ay ku jira xabsigan gobolka California ay sameynayaan arrin mar hore laga mamnuucay oo ah inay cibaadaystaan ama tukadaan. Dadku iskuma urursan karaan koox si ay wax u bartaan ama u baraan una tukadaan salaadaha oo aasaas u ah diinta Islaamka. Imaamku wuxuu sheegay in boqolkiiba 5 ka mid ah 3832 maxbuus ee ku jira xabsiga Solano ay yihiin muslimiin salaada tukata. Jesse Hassani markii aan muslimay waxaa la isiiyay mabaadi ah sidaan sameeyay iyo saas ha samaynin. Mar haddii aad shaki ka qabtid ha samaynin. Kaasi wuxuu ahaa Jesse Purleson oo loo yaqaan Hassani. Wuxuu xabsiga ku jiray 31 sano wuxuuna ka mid yahay muslimiinta ku cibaadaysta xabsiga Solano oo waxay qayb ka yihiin malaayiinta muslimiinta ah ee xabsiyada kala duwan ee Mareykanka ku xiran. Xaqiiqatan Mareykanka waxaa ku xiran maxaabiista ugu badan caalamka oo dhamaadkii 2017 waxaa xabsiyada Mareykanka lagu xiray maxaabiis ka badan 2.3 milyan oo qof, waxayna ahayd tiro wax badan dheer maxaabiista wadamada horumaray. Tiradaas waxay ka kooban tahay maxaabiista ku jira xabsiyada dowladda dhexe iyo xabsiyada gobolada, waxaana ka muuqda sarakac tirada maxaabiista Mareykanka. Xabsigu waa meel arrimahaaga qaaska ah sida cuntadaada, xorriyadaada, madadaaladaada iyo diintaadaba si xadidan loogu saleeyay sharciyo u qaasa maamulka xabsiga. Inaadna hesho habab aad ku gudan karto waajibaadkaaga diiniga ah ma sahlana oo aad ayay u adagtahay, balse maxaabiistan waxay ku dabaqeen xukunkooda muddada aadka u dheer ah inay kaga faa'iidaystaan barashada diintooda Islaamka. Mid ka mid ah waxyaabaha igu dhaliyay inaan bilaabo wax ka duwan wixii aan horey ugu jiray ayaa ah inaan aad u fiirin jiray dhaqannada dadka hareerahayga ku sugan, kuwaas oo ay ka mid ahaayeen dadka iga waaweyn isla markaana ku sugan xabsiga muddo ka badan inta aan ku suganahay, haddana weli ku sii jira ficilladii xumaa ee xabsiga ku muteesteen, iyo anigoo ku qanacsaneen waxyaabaha foosha xun ee aan ku arko ayaga. Xilligaas ayaan bilaabay inaan diin fiican raadiyo, iskana daayo wax kasta oo qaldan. Fikirkayga wuxuu ahaa Muslim, Christian iyo diinta miday doontaba ha ahaatee inaan helo hab nololeed wanaagsan oo akhlaaq leh. Isla markaana waxaan aaminsanaa Ilaah oo wadada kaliya ee aan ku bedeli karo inay ahayd wadada Ilaah. Haatan Hassani waa mid ka mid ah muslimiinta uu maalin kasta wax ku baro uguna waco salaadaha Imaam Maxamed Cali gudaha xabsiga Solano. Diintu aad ayay muhiim ugu tahay maxaabiista, isla markaana waxay ku xiraysaa arrin ka weyn duruufaha qabsada, waayo waxaa jira dad badan oo markay maxaabiis yihiin kontarooli karin naftooda. Hadday tahay waxaad cuni lahayd, hadday tahay marxaladda noloshaada oo xaqiiqa waxay bini'aadamka ka caawisaa inay dareemaan nuxurka ku xirnaanshaha wax ka weyn waxa hortooda yaal. Ilaah ayay ula jeedaan. Laakiin safarka Islaamka iyo barashadiisa waxaa adkeeyay dhaqanka xabsiyada iyo sharciyada xabsiyada waddanka Mareykanka. Inkastoo muslimiinta ay ka mid yihiin boqolkiiba hal halbeega shacab weynaha Mareykanka, tiradaas waxaa la filayaa inay la bajibaaranto 2050 halka kobacaasna si cayiman uu uga imaanayo maxaabiista diinta Islaamka ku qaadanaya xabsiga dhexdiisa. Diinta Islaamka waxaa la ogyahay inay awood qaasa ku leedahay gudaha xabsiyada. Xaqiiqatan dad badan ayaa qaata diinta Islaamka marka la barbar dhigo diimaha kale waddanka dhan. Muslimiinta waxay ka yihiin boqolkiiba 15 maxaabiista xabsiyada ku jira. Cali xataa wuxuu sheegay in hal ama 2 qof ay soo islaamaan bil walba, inkastoo taas aysan ahayn hadafkiisa oo uu ka badan rabay. Waxaa tiradaas ka dhigay in aad la isku weydiiyo ayaa ahayd in la ogyahay siday u adkeyd in Islaamka loo aqbalo diin laga aqoonsan yahay xabsiyada qaar dhexdooda. Maamulka xabsiyada marka loo eego dhaqanka saraakiishooda ma ogolaan karin in koox muslimiin ah oo ka kooban 3 isku imaadaan. Hadday dhacdana waa kala qaybin jireen. Sidaas waxaa yiri Cabdulra'uuf Naasir. Wuxuu ku bixiyay 30 sano waqtigiisa si uu u caawiyo maxaabiista, wuxuuna doorbiday cadaaladda bulshada inuu ka shaqeeyo isagoo xubin firfircoon ka ah diintiisa. Markuu bilaabay u shaqaynta maxaabiista 70-meeyadii, sistamka xabsigu wuxuu ahaa mid faldambiyeedka lagula kaco muslimiinta ay aad u badnaayeen. Dhowr ka mid ah maxaabiista ku jirtay xabsigan ayaa loo maxkamadeeyay salaadahooda oo batay iyo iimaan tujiye oo ay dalbadeen in loo keeno maalin kasta, ayagoo weliba codsaday inay jimcada jameeco ku tukadaan. Ugu dambeyntii dadaalo fara badan kadib waxaa loo keenay iimaan joogto ah, ayagoo weliba dhammaan dalabyadoodii loo fududeeyay. Guud ahaan waddanka sharciyada iska soo horjeeda waa mid sii socda weli. Warbixintii 2013 waxay sheegaysaa in muslimiintu soo gudbiyeen cabasho diimeedkii ugu ballaarnaa marka loo eego urur-diimeedyada kale ee xabsiga ku jiray intii u dhaxaysay 2005 iyo 2007. Islaamka ama ururada muslimiinta ee xabsiyada
xabsiyada ka jira inta badan waxay u muuqdaan kuwo awood badan leh sababtoo ah muddo aad u badan ayay ka jireen xabsiyada ayagoo ka dagaalamayay sistemyada xabsiyada ka jira sharci ahaan iyo muuqaal ahaanba. awooddaas la isweydiinayo si fudud waxaa looga garan karaa mid ka mid ah dadka diinta islaamka qaatay aadna uga dhex muuqday. Malcolm X qisadiisa aad ayay caan uga tahay Mareykanka islamarkaana waxay kusoo hogaamisaa dadka diinta islaamka ama soo tusisaa dadka inay indhaha ku qabtaan diinta islaamka. Dib ayay u qaabaysaa dadka rajada inuu xabsiga ku badbaadi karana waa ay tusisaa sababtoo ah Malcolm X ba xabsiga waa ka badbaaday. Malcolm X xalkiisii ilaa maanta waa la soo cusboonaysiiyaa kadib 50 sano geeridiisa. Malcolm X oo yar ayaa qaatay 1952 diin ay hogaaminayaan urur la yiraahdo Nation of Islam oo sheegta inay muslimiin yihiin laakiin aan muslimiin ahayn. Balse kadib markuu soo booqday xajka wuxuu qaatay diinta saxda ah ee islaamka islamarkaana aad ugu ammaanay bulshadii uu ka yimid ee reer Mareykan asagoo sheegay inaysan lahayn midab kala sooc. Marka loo eego muslimka waxaan ahaan doonaa dhammaanteen muslimiin, waan isku dayi doonaa waana bari doonaa diinta islaamka dhammaan Afrikaanta waxaana kulli ka dhigi doonaa muslimiin. Shuruucda udubdhexaadka u ah qaab abaabuleedka xabsiga waa mid ka kooban cagajugleen qalalaaso ku salaysan sababtoo ah maxaabiista waxaa loo kala dhaqaajiyaa ama loo kala saaraa iyadoo la eegayo siday u kala khatar badan yihiin. Halkan oo ah xabsiga Solano waxaa lagu kala ilaaliyaa qolalka. kuwa keena khatarta aadka u sareysa waxaa lagu xiraa qol sidaan oo kale ah iyadoo loo yeelayo ilaalo qaasa oo hubeysan. Xaqiiqatan waxaa jira dhowr waxyaabood oo bedelaya sida islaamka u cibaadaystaan. Ma jiro application quraanka aad ka akhrisan kartid, ma jiro telefoon kuu sheegaya xilliga adinka. halkaan markaad tahay qof islaam ah aad ayay kuugu adag tahay inay waxyaabaha asaasiyaadka kuu fududaadaan oo waa ka duwan tahay markaad bannaanka joogto. lama hubo qofka inuu cibaadada sii wadi doono markuu ka baxo xabsiga, laakiin waxaa run ah in shakhsiyaadka qaar ay diinta islaamka ku soo galeen si ay gaashaan ugu noqoto oo uu u helo walaalo u dagaalama maadaama xabsiga lagu kala awood badan yahay. balse Xasaani oo ay ka dhiman tahay dhowr maalmood sii deyntiisa wuxuu sheegay inuu u socdaali doono beydka Allah oo uu soo xajin doono. marka la ii eego aniga inaan xajka aado waa hadafkayga ugu weyn nolosha oo waa mid ka mid ah hadafyada ugu sarreeya ama ugu horeeya noloshayda. waad ku mahadsantahay daawashadaada. fadlan haddaad ku cusub tahay subscribe saar si aad ula socoto qisooyinka dambe ee aan idiin soo dayn doono. mahadsanidin.